saaxiibayaal horta aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel kastoo caalamka idinka joogtaan waxaan rajaynayaa dhibaatada koronaha adduunyada ka socota in ilaahay naga nabadgeliyo asxaab badan oo aan leeyahay ayaa waxay soo weydiiyeen sheekaha tan ka hor facebooka ku sheergareeyey sheekadaasi waxay ahayd midaan ka sheegay fagaare ku yaala dalka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan magaalada caasimadda Djibouti fagaaraha waxay ugu wehelinayay qoraaga caanka ee caalamiga ee Soomaaliga ee Nuuruddin Faarax sheekadu waxay ku saabsanayd mararka qaarkood sida Soomaalidu ay ugu kala duwan yihiin isticmaalka kelmadaha marka loo eego qaybaha kala duwan ee Soomaalida sheekadan waxay ka dhacday intiina aan hore u arkin klibka hore waddanka Australia dabadeedna sheekadu waxay ku saabsanayd labada kelmadood ee dadka Soomaalida waqooyina ay u yaqaanaan jiirka koonfurtana looga yaqaano dooliga dabadeedna nin dooli la yiraahdo caana oo kubadda ciyaara oo waddanka Australia degan ayaa jira oo markaa xaas xagga kule oo maaragtay Soomaaliduna ay aad u yaqaanaan deedna gabadh reer koonfureed ayaa waxay soo booqatay saaxiibadeedu ay daris yihiin oo reer waqooyiya deedna gabadhii reer koonfureedka ahayd baa tii wallaahi aabaayo waxaan yeela garan maayo dooliyan khaati ka jooga gabadhii reer waqooyiga ahayd markaa dooliga jiir bay u taqaanaa laakiin waxay taqaanaa ninkan dooli la yidhaahdo ee dee ay dariska yihiin ee magaalada la degan asxaabta horta isoo weydiisay sheekadan deeq daraja kowka saaxiibkay aan sheekadii idiin wada deedna gabadhii reer waqooyiga ahayd baa waxay tii naaheedhe naanu ku maqlayayaan dadka kale ku maqleen oo maxaad iyo dooli isu kiin keenay gabadhii reer koonfureedka ahayd baa waxay tii wallaahi aabaayo waxaan yeela garan maayo gurigeygiiba khaati uga joogaa markaasay haddana tii reer waqooyiga ahayd ku celisay tii naaheedhe naabalaanu ku maqlaya dadka islaamadiyaana ku maqleen oo maxaa dooli isu kiin keenay base tii aabaayo hadda suntaas haban usoo gado sun baan siinayaa markaasay tii naaheedhe naadna dhagar haysgelin doolina naftiisa ha galaafanin walaal waxaad yeeshaa muxuu kugu samaysay tii wallaahi aabaayo gurigeygi wax walba waa yeelo waa uga taaglahay markaasay ku tii waxaad yeeshaa oo maad tolkii u sheegtid tii reer waqooyiga ahayd baa odhanaysa moogta tii reer koonfureedka ahayd waxay tii adi ma waalantay dooli maa tol leh markaasay tii naasoo kuwan magaalada ka buuxa maaha markaasay deedna haddana ku celisay tii adi ma jiran tahay dooli maa tol qaba markaasay tii naahedha waa kuwa jooge dee anugu garan maayo waxaad ku diidaysa haddaba waxaad yeeshaa walaalo maad xaaskiisa u sheegtid haddaad khaati ka joogto markaasay tii reer koonfureedka ay tiri haddaabad ka sii dartay way tii dooli maa xaas qaba markaa labadii dee midibo waxay taagan tahay geesteeda oo maaragtay ta kale ka yaabanta markaasay tii naahedha soo kan gabadhan qaba maaha sahruuja nudariska markaasay fahantay gabadhii reer koonfureedka ahayd waxaa gabadhani maantoo dhan ay ka hadlaysay inaanu ahayn dee ninkan odayga ee dooli ee magaalada la degana laakiin uu yahay jiirkii gooraan goor ahayn baa laysku soo dhacay laakiin dee berigii hore riwaayadaha lagu dhigi jiray oo awkoomba waa kii lahaa isagoo lasii dardaarmaya mid waqooyi u safraya riwaayadihiisa mid ka mid a gamba haddaad maqashaan gabanin buu yidhi kuumila waaye marka laakiin berigaa hore riwaayadaha lagu dhigi jiray sheekadan waxay mucjise ku ahayd waxay ahayd sheeko dee si riyalo u dhacday oo dhaba oo labada gabdhood ee deriska dhex martay deeq darajo saaxiib waxaan rajaynayaa in imika sheekada aad ka bogatay aad iyo aad baa dhammaantiin ba u mahadsantihin